السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا أخيارتي إدي جيسانيساي kanaalkeena fikrad ganacsi. maanta waxaan ka hadli doonaa nin lagu magacaabo Don Wonjang iyo heerka uu ka soo gaaray ganacsiga. fadlan nagu caawi subscribe iyo like lana soco muuqaalkan. ninkani waxaa lagu magacaabaa Don Wonjang. wuxuu ku dhashay Kuuriyada Koonfureed. qoyskiisa waxay ahayn sabool. wuxuu koryoonayay inuu waxbarashadiisa sii dhammaystiro ilaa iyo heerka jaamacadda. awood uma sii helin inuu sii dhammaystiro jaamacaddiisa, balse wuxuu helay shahaadadii diblomaha oo keliya. ninkani wuxuu ahaa nin aad u shaqo badan. wax yar oo keliya ayuu nasan jiray. wuxuu ururiyey lacag aad u yar isagoo ku bilaabay ganacsi iibinta shaaha iyo cabitaanka mid ka mid ah xaafadaha ay degan yihiin dadka saboolka ee lagu magacaabo Seoul kuna yaala Kuuriyada Koonfureed. wuxuu guursaday gabar uu jeclaa kuna haminayay inay iska garabsadaan ganacsiga yar ee uu wado. sidoo kale waxay ku haminayeen inay u safraan dalka Mareykanka si ay riyadaas u rumeeyaan. ma dareemi kartaa daawade waxa ay sameeyeen? waxa ay ururin jireen senti walba iyo dollar walba oo ay helaan. muddo 3 sano oo shaqo xiriir ah waxa ay u safreen dalka Mareykanka. marka ay gaareen, xaaladii ayaa ku cuslaatay. xitaa luqadda ma aysan garanaynin, aysan haysan qarash ay ku bilaabaan ganacsi yar. muddo ayay xaaladaas ku noolaayeen. ugu dambayn, Don Wonjang ayaa bilaabay 3 shaqo oo kala duwan uu ku geli jiray saacado, kuwaasoo kala ah shaqaale ka shaqeeya kaalin shidaal, shaqaale ka shaqeeya maqaayad, iyo waardiye geerish lagu xareeyo gawaarida. 4 sano ayuu ku sugnaa xaaladdan. hal su'aal ayuu weydii jiray dadka gawaarida qaaliga ah wata ee uu shidaalka ugu shubi jiray. su'aashaasoo ah, maxaad ka ganacsataa? 90% waxay uga jawaabi jireen, dharka ayaan ka ganacsanaa. ganacsiga dharka wax ma uusan ka garanaynin, balse wuxuu bilaabay inuu wax badan ka baaro kana aqriyo. tallaabadan ayaa ah waxa ay dad badan guul ka gaareen aqrinta iyo baaridda. 4 sano kadib waxay ku guulaysteen isaga iyo xaaskiisa in ay furaan dukaankii ugu horeeyey ee lagu iibiyo dharka, kaa uu ku yaalo xaafadda Highland Park ee gobolka Los Angeles. balse waxa nabar iyo murugo ku noqotay in dukaankan ay 6 qofood oo iyaga ka horeeyey ku iibin jireen dharka kuna qasaareen. maxaa yeelay xaafadda waxaa ku badan dadka saboolka ah. Don Wonjang ma uusan isdhiibin, balse wuxuu ka faa'iidaystay khibradda dadka isaga ka horeeyey. wuxuu ahaa nin dadka ku qanciya shayga iyo qiimaha. bilooyin kadib wuxuu bilaabay ganacsigiisa inuu sare u kaco. maalintii wuxuu faa'iidi jiray lacag dhan $100. wuxuu qiyaasay in sanadka hadduu dhammaado uu helayo lacag dhan $30,000. balse xaaladda si uusan filaynin ayay noqotay. sanadka marka uu dhammaaday wuxuu faa'iiday lacag dhan $300,000. wuxuu ogaaday in waddada uu hayo ay tahay mid saxan. 5 sano kadib wuxuu noqday nin leh 11 dukaan oo lagu iibiyo dharka kuna yaalo dalka Mareykanka.
wuxuuna u sameeyey hal magacaasoo ah Forever 21. maanta waxaa xarumihiisa ka shaqeeya 38,000 oo shaqaale. intaa uu keliya maaha, wuxuu kaloo leeyahay 700 oo dukaan oo ku yaallo daafaha dunida. guriga uu degan yahay ma malaysan kartaa qiimaha uu joogo? waa $17 milyan oo dollar. wuxuuna ku yaallaa xaafadda Beverly Hills oo ay degan yihiin taajiriinta ugu badan Maraykanka. daawade, ninkan aad arkayso wuxuu ku gaaray sabar iyo kayd oo isaga urursaday. ogsoonow, adiga waad gaari kartaa meel isaga ka saraysa. mar walbo ka fikir inaad noloshaada kobciso oo wax ka beddesho. aad ayaad u mahadsantihiin.